kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkan ku soo qaadi doona hadii alla laga helo waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dagaalkii ugu cuslaa uu ka dhac qarxay xubno kamid ah xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo weeraro kulul isku qaaday hadaba waxa la wadaagi doona macluumaadkii ugu dambeeyay wasiirka tirsan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh sidoo kale tan kamid ah xisbiga GSB oo qaab la yaab leh ay xubnaha xisbiga ku jiro ay u weerareen soo najeediyeen in madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka ka qaado hadaba waxa la wadaagi doona xildhibaan Ilyas oo kamid ah xildhibaanada gacanta midig madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kana mid ah xisbiga GSB oo markaasi dagaal ka dhax bilaabay xisbiga madaxweynaha iyada oo haddana kooxda madaxweynaha la kala celinayo wararitaas ku aadanayaan idin heena sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa garoonka diyaaradaha cadde magaalada Muqdisho maanta wax shaqo ah kama socoto hadaba banaanbax culus oo gudaha garoonka ka bilowday kadib markii shirkad ajnabi ah ay bilowday inay qaar ka mid ah shaqaalaha ay dhibaato kula kacdo shaqaalihii oo godad culus dhigay iyo xaalka guud ee garoonka diyaaradaha cadde international airport ee magaalada Muqdisho oo maanta allow sahla ayanu warar idinka keenaa sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa Somaliland oo qaaday tallaabo ay ku carqaladeynayso hawada Soomaaliya hadaba maxay tahay tallaabada la yaab kale ee Somaliland ay qaaday waan idin soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal qaybtan qodobada ay kuwa kale oo muhiim ah ayanu idinku soo gudbin doonaa aan ku bilowno wararkeena isla markaasina ugu horeysiino wararkii ugu dambeeyay dagaalka culus ee ka dhax qarxay xubnaha xisbiga GSB ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya hadaba xubnaha xisbiga madaxweynaha ayaa la soo sheegayaa in ay ka dhax tafatay waxaana qaarkood ay bilaabeen inay kuraasta iska ritaan iyada oo ay eedeemo kulul oo qaarkood cajiib ay isku jeedinayaan oo ku aadan in xukuumaddu ay fashilantay wasiirada qaar ee jagada ka hayana ay yihiin kuwo mugudbayaal ah hadaba xildhibaan Ilyas oo la og yahay inuu kamid yahay xubnaha sarsare ee xisbiga GSB ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xisbigii uu ka tirsanaa waxa uu bilaabay in uu ka dhax bilaabo dagaal culus oo xisbiga dhexdiisa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo isna xisbiga kamid ah ayaa uu qaab la yaab leh u weeraray isaga oo hadallo qaarkood lagu sifeeyay inay yihiin kuwo bahdil ku ah xisbiga iyo sidoo kale xukuumadda dan qaran uu sheegay maadaama ninka uu ku weerarayo kartixumo in lagu shaqaaleysiiyay oo wasiir looga dhigay uu ka tirsan yahay xisbiga taasi oo ka dhigan in magac guud oo xun oo xisbiga iyo sidoo kale xukuumadda dan qaran ee Xamza Barraba u soo hoynayo hadalka ninka kani kaliya ma aha xildhibaan Ilyas ee waxa jiro rag badan oo kamid ah xisbiga GSB kuwaasi oo iyaguna bilaabay inay qaarkood ragga kale xisbiga kula jiro ay kuraasta ka ritaan si baa la yiri ay saameyn ugu yeeshaan isbedelka lagu sameyn doono dhawaan xukuumadda Ilyas ayaa kamid ah ragga uu dareenayo in uu ku soo baxo kursigan waxaana uu ninkan yahay nin hadda ku fadhiyo kursiga xildhibaan Mahad Maxamed Salaad uu ka tagay hadaba isku soo wada duube qaybta dambe waxa rabaa inuu kula wadaago hadalka cajiibka ah ee uu Ilyas uu runtu uga sheegayo fashilka xukuumadda dan qaran ee uu ugu weyn yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale tan garoonka diyaaradaha cadde magaalada Muqdisho waxa maanta ka taagan fataxad aad u weyn kadib markii shaqaalihii garoonka ay dhigeen isu soo bax iyo godad culus ay ka muujinayaan shirkadda ajnabiga ah ee Favori oo asalkeedu Turkigu yahay hadaba shaqaalaha garoonka ka howlgalaya ayaa shaqo joojin sameeyay kadib markii ay dhibaatooyin tirabela ka tirsadeen shirkaddan ajnabiga ah oo ay kula kacayso dhibaatooyinkaasi shaqaalaha Soomaalida ee ka howlgala garoonka diyaaradaha cadde muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya diyaaradaha ka soo degaya garoonka oo aanan helin shaqaalihii boorsooyinka diyaaradaha ka soo qaadi jiray iyada oo sidoo kale tan muuqaalada lagu baahiyay baraha bulshada ay muujinayaan xaalka garoonka diyaaradaha cadde oo qasan isla markaasina garoonku lagu arkayo shaqaalihii oo ilinka hore ee garoonku ku banaabaxayo mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ilaa xilligan arintan ma aanay soo faragelin shirkadda Favori la yiraahdo waa shirkad ajnabi ah oo dhowr iyo 10 sano iska maamuleyso garoonka diyaaradaha cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo lagu eedeeyo in wax horumarina garoonku aysan ka sameeynin
dhinaca kale tan Somaliland ayaa qaaday tallaabo ay ku carqaladeynayso hawada Soomaaliya iyada oo tanina ay horseed u noqon karto in diyaaradaha imaanayo garoomada Soomaaliya inay wajahaan marka ay soo galaan hawada Soomaaliya qalqal xagga amniga muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayo Somaliland oo hay'adeeda socdaalka ay la hadlayaan diyaarad soo gashay hawada iyada oo hawada Laascaanood diyaaraddu ay marayso ayay ku wargelinaysaa inaysan fasax la'aan hawada Somaliland soo gali karin sida muuqaalka laga dheehan karo tani ayaa muujinayso cawaaqib xum oo ka dhashay talaabadii ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu qasabtay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee sito baasaboorka ajnabiga ee tagayo magaalooyinka Soomaaliya oo ay Hargeysa ku jirto inay qaataan baasaboorka markaas ajnabiga haddii ay wataan e-visa dhammaan ajaanibta kaletana e-visa Soomaaliya inay qaataan ayaa lagu qasbay taa oo ay si weyn kaga beedideen Somaliland iyo Puntland haddaba Somaliland oo dadka qurba joogta Somaliland ay cabashadoodu sidii tusbax furto noqday iyo xukuumadda Ciro cadaadis xoog la kulmayso ayaa bilowday talaabadan oo ay u aragto inay culays ay ku saari karto dowladda federaalka Soomaaliya hawada Soomaaliya oo qalqal gashana waxa ay tani noqon kartaa mid si weyn u dhaawacayso sugnaanta amni ee hawada Soomaaliya talaabooyinkan ayaa waxa ay muujinayaan heerka ay gaarsiisan tahay is-heesiga dhinacyada ee salka ku hayo arinta barnaamijka e-visa ee soo rogtay dowladda Soomaaliya nabadgelyo